عبد الرزاق برنامج كلمة حنايا لما قاعد بحي حاسد حل ملك ما دامت كميت هاي أقوني يعني أنت داود دينا سمعت إثيوبيا إن كحل أنك صحافة وحنا كقرا كسر البرنامج ما سنة عبد الرشيد وأندوه هاي بدو ما سنتها ما أنت محامس كسران نين لما قاعد بحي عبد الرشيد على شاع وشغنية قون وإن إبسا يارتها بالله وانقرت إن أرمو قوتي عليه وانقرت إن على شعاعنا معها مركب أي وخنيس نكاس مقرأ ساي دبدا لقى خنيسو سومالينا معها هذا واحد شيء على شعاع بعد عليه سومالي وسنحتاهين تاريخ إحنا نقول شيء كرتا ها وان كاغا شيء كرا عبد الرشيد أي نين كانوا وفولي هرته وانقرت oo inuu fulay yahay waxa ku cadeynaya waxa uu qorayo horta ubada ku qasabta fikir say ka yimaaday maaha waan gartay waa fikir ubada ka yimaaday oo ku qasabtay aye oo muddo eega 3 bilood laga joogo iyo Norway ku tuureeyeen bay ku tuureeyeen oo dhahay magaraysaay waad qori waad qasab aad wax noogu qori saas waxa uu qoraa horta ninku sababtu tuureeyeen wax weeyaan qasab wax loogu qoro ها أقرت nimankii tooriyay dabeer xumadiisa iyo fulinimadiisa ninka wuxuu qorayay weeyaan horta haye marka taas waa qayb kamid ah fulinimadiisa cadeynaysa أقرت mid kaleete hadii aad magaranaysaay la hadasho qoraalkiisa magaranaysaay oo comment ka bixiso dhalinyar fara badan oo dhalinyarteena magaranaysaay social media ga isticmaala أقرت yaa wuxuu soo dhigay damcayna fikir la wadaagaan haye oo si loojigo cilmiyeysan magaranaysaay waxaan soo dhigay su'aal weydii أقرت qof si loojiga oo cilmiyeysan wuxuu weydiiyay ma uu arkay blog ku qabanaya qofka ma garatay anigaygan anigu bidaahiba laba cishaan ma garanaysaa wada doodeynay ma garatay labadii cishaan wada doodeynay waxaan ku iraahday ma garanaysaa inay ibsaa yeelataayo cid kale to deegaanka oo kula hadlay ama nuu iyo naatoona ku dhig ma jirto anigii adiga wada doodeynay ma garatay marka wax magaranaysaa jiha uu leeyahay iyo meel uu socdo qoraalkiisuna waa ku gabay uu meel ka soo qaado soo dhigay iyo ruux kuuba uu iska soo qaadan wuxuu qoro ma garatay waan gartay marka wax uu isagu leeyahayna ma aha hay ma garatay si fiican marka waxa kale oo fulinimadiisa ku cadeynaya waxaad arkay ninkanu jiha ma laha horta hay waxaad arkay isagoo dawladda Soomaaliya haysta arkay ay soo dhigayo dawladda Soomaaliya haysta Soomaaliya wuxuu ka doonay bal adoo garo ka u dhig hay iyo shacabkeedii iyo dawladda iyo shacabkeedii labadiiba isagoo haysta arkay oo caayo wax ka sheegayo mas'uuliyiinteedii iyo wada caayo kurti oo cidna reebay waan gartay Soomaaliland baad arkayso ku hay Soomaaliland dawladda waa qabiil isagoo leh baad arkay oo qabiil ku tilmaamaya oo qabiil ku tilmaamaya hay Djibouti dawladda Djibouti aragtaad arkayso ku haya Faransiiskii baa wali gumaystay waan gartay gawda su'aaliyan weydiiba kamid aha war marka aad xageed ka socoto jihadeed leedahay waan gartay qof jihale soo matiyid xageed kolba meel baad u boodaan kolba garanaysaa meelan joogmada baad u carartay marka Soomaalinimada ninkan ma garanaysaa in lagu tiriyo Soomaaliba xitaa ma ahadii waa qoti ninkan waa inay ibsa yeelataa weeyaan si fiican hay ma garatay marka hal qof wax qoraal hal qof wax kaga dhaadhicin karo ma jiro qoraalkiis ma garatay si fiican hadii ma garanaysaa dadka uu dhalinyarta uu baloogay way caayeen buu leeyahay ama waalidkayba caayeen buu leeyahay habeen alla keenay maalin alla keenay qof waalidu wax ka sheegaya waan gartay bal yeelisi adigu marka labada waalid ma ismid ahayn labada waalid ma kiisa oramada ahaan u malayaas gabadhe haye marka bal waalid baa wax ka sheegi waalidkayba la oo kana caayisa waayo adaba oramahe wati ee waliba si fiican gabadhe marka malaha ma garanaysaa balaaqa ama qoraal uu wax ku soo dhigi karo qof wax kaga dhaadhicin karo aniga kamid ah dhalinyartii la dooday ma garanaysaa eegadana diyaar u ah inaan la doodo arbal wakaas blogga hayga qaado wakaas ya dhaarba waxaan ku maray qof kale taba inaysan la hadlin baani mooyaane ma garat oo boostiyo ilaa 5 boosti oo soo dhigay markaan beeneeyo runtoodii soo qaaday qoraaladii uu soo dhigay waxa kamid ah balday biiraaday sanadii horeetee yu madaxweynuhu lahaa waxaan ka soo jari soo sanadii hore gunagada xariga laga ma jarin sanadan ay waxa laga jaray waa maxay waa riwaayad marka waxa ka maqnaa inuu sanadii horeete laga jaray wajigii koowaad xariga laga jaray baa ka maqnaa warkii baan soo qaaday dadna sanadii horeete
wejigii koowaad inay gunagadahay ay xariga laga jaray wejigana kii labaad uu yahay sax ku saddexaad inuu harayna uu ku geli doonaayo boostigaasaan soo qaaday si fiican kanaan kaga jawaabay kun nin kuuba uu waxba ka gelin yuu soo qaatay waan gartay midda labaad waa jaahil horta ninkan oo inuu jaahil yahay waxaa kuu cadayni luuqadan ingiriisku horta cilmi u haystaa waan gartay lagu hadlo lagu hadlo in luuqad lagu hadlo tahay malaha ma ogey qad dad ku hadlo dad leeyihiin oo soomaaliga siman yihiin oo sida soomaaliga luuqad u tahay inay magaraysa ingiriisku luuqad u tahay malaha way ka maqan tahay cilmi bay malaha la tahay si fiican ay kawdhe waan gartay waxyaabaha jaahilnimadkiisa kuu cadaynaya sax waxyaabaha jaahilnimadkiisa kuu cadaynaya waxaa kamid ah kulama doodi karo anigu imisa eega ubayaan magaraysaa la ahay friendis oo naan isbaloogina wada doodaan wax soo sheegtaan waan gartay marka waxaa jaahilnimadiisa kuu cadaynaya baloogan uu ku balooganayo qof balaaqa uu kugula doodo cilmi uu kugula doodo ama fikir uu kula doodo ma aha de muxuu kugula doodi waa wax loo soo dhiibay iyo wuxuu meel ka soo qaaday wuxuu meel wax loo soo dhiibay iyo wax meel kugula doodi iyo wax lagu qasbay waa wax nimankii tooriyayaaro ba shaqeynaya fiiri isagu muuna kamid ahayn ururka ubada muuna kamid ahayn kamid maaha maya hadduu kamid yahay muu soo qoro ood aragtiisa ku haya magaraysaayey ubadan taageeraa oo magaraysaayey in cumar dacay baa kan yiri iyo qoraalo noocaas meesha miyaad ku aragtay ma jiraan ma aha ninku waa lagu qasbay waa lagu dilay waan gartay lagu tooriyay hadduu wadi waayana way ka shaqaysan way joogaan wiilashii ka shaqaystay sax oo way daba taagan yihiin waan gartay marka mar labaad inuu lug baxo uu diidan yahay gawdhe sax waa waxyaabaha jaahilnimadkiisa ku cadaynaya weeyaan gawdhe waan gartay marka ninkan nin magaraysaay nin jahala ma aha nin soomaaliya ma aha nin magaraysaay balaaqa wax ku qorala ma aha nin kugu dhiiran karo oo magaraysaay kula doodi kara ma aha nin fikirka uu ka hadlaya ama meesha uu ku socdo jihada uu ku socdo aad garan karta ma aha oo Djibouti iyo Jubaland iyo Somaliland iyo kurti wixii uu wada boys gareynay ma garatay meesha uu ka socdo iyo nin jihale uu meesha ku socdo iyo meesha ku socdo toona aad garanayso toona ma aha ma garatay waan gartay anigu eega hadalkaygu waa cad yahay anigu DDSI baan ka socdaa sax ma garatay DDSI wixii weliba qaybta qalinka ku qor si fiican ma garatay inaan u jawaabaan diyaar u ah sax meel dhanka doonaya ka soo cilmi haday tahay haday aqoon tahay ma garatay sax dad badan oo fikir khaldan aaminsan way jiraan wada doodno sax si diblomaasi aan u doodnaa oo aysan cay ku jirin sax ma garatay sax dad badan oo waxaa jira aanu isfahanay isaan u isugu qoraynay aanu isfahanay markii dambe taan isku soo dhacno na taageeray anaga qaar doodi wali noo socoto oo hadda iyagiyoon kala fikirnahay baan saaxiibanahan wada doodnaa sax ma garatay si caadi noo weydiinayaan waxay dhahayaan magaraysaay muxuu ahaa mashruucan masheekadiinii baa waxaan xariga laga jaray mise waa bal reality note waan iyadoo video waan tusaynaa ma garatay si fiican marka ninkan jaahilnimadkiisa iyo waxyaabaha magaraysaay caqli xumidkiisa waxaa tusaale ahaan waxaan kugu soo qaadanay gabadhii fardowse dig magaraysaay qiiraysnayd ee biyaha birqod laga keenay dig maraya aamini la qiirada yunjula boodo fardowse oo dig aabaheed ku xidhan yahay oo waa dadkii farxadda la hal saac kadib videogii fardowse hodlaysaan soo daba dhigay muxuu sameyn fardowsadii oo hadlaysa oo ooyeyso qaadan waa oo magaraysaay farxada u qiiraysan dee ha aamusiyaha dee fardowse wata hadlayse haddana ha dhahadii magaraysaay dib bay kasoo duweeno magaraysaay hadda maxay markuu boostigii soo dhigay videogii daqiiqa kadib videogii baa yaallay fardowse oo qiiraysan oo ilaa 2 daqiiqo iyo waxoo hadlaysa sax gawdhe waxyaabihii ugu balowgareeyay ba kamid ahaydba wixii saa ugu soo dhigaba inaan realitygeedii aan daba dhigo inaan runta sheegto ninkan horta mas-uuliyiinta uu sheegayo maba yaqaanaan mashruuca 400 milyan ee xariga laga soo jaray iyo kuwa kaleeto eega usii socdaan iyo magaraysaay mashquulsan oo magaraysaay danihii shacabka shaqayntiisii ku mashquulsan ma garatay weeyaan bogowle cid ogba wuu dhagala yahay jub inuu yahay Soomaali sidii marka ninkan maxaa ku tilmaami kartaa farsaaqo ma ninkan waa jaahil waa furay waa jihalaan waa dameer dhagala gawdhe waxaan ubadii shalay dawlad dishay u shaqaynaya jihada uu leeyahay iyo meesha ku socdo iyo cidda uu taageersan yahay balkaas ay cadeeyay horta anu DDSI baan taageersan la soo fadhiyaa barnaamijkan taxanaha bal cidda uu taageersan yahay meesha uu ka socdo ma garatay xitaa waxaan u maleeyaa inay dhahin nama sheegi kartid iyaan u maleeyaa tuurida inay ugu dareen inaan annaga ku dirnayna nama sheegi kartid bay ugu dareenba sababta uu qori lahayd uu cadeyn lahaa cidda uu ka socday ma garan marka dee saan sheegay mas-uuliyiinta sare heer deegaan danaha shacabka ka shaqayntooda ku mashquulsan yihiin ninkan dhagahala dhalinyarta social media-ga isticmaasheen anuu kow ka ah ma garatay unbay u suuran tahay oo durba jawaabtiisa saa isagoo been sheegayo been qoraya
yaa wax soo qoraya ma anagoo runtii hayna wax qori waay ama wax soo dhigi waay maya isagoo beenaala oo been qoraya you are warkan sawirka anaga qiirada ahaa iyo magaranaysaa ay muruga ka dhigaya soo inaan fiidiyoogii marka soo qaadno hor dhigno marka ma ha cadaynta in la soo aad iyo aad baad mahadsantahay Abdulsaaq maadaama barnaamijka taxaan laga qayb gashay adaa mudan Cabdirashiid adaa mudan waana insha Allah wana in la socon doona barnaamijka diyaar baan ahay difaaca DDSI iyo magaranaysaa saan halkan uga sifaynay kuwii qoriga watay sax baan kuwan jaahiliinta ingiriiska cilmigooda inaan uga sifaynayna hadii aad baad mahadsantahay taawadayaal halkaas waxaa nooga barnaamijkan taxanaha ee magac baxay xaasid xal male naga daawataan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Somali Media Network